السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وحن كسلام يا هلكن صومالي وين وحن كسلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحن كهلا يا محي هذي علاقة كسعود هبني مالين ماشان لا يراو قلمودو قبلada dhexe dagaalada ka soconaya waan joogsiga lahayn. waxaan leeyahay ilaahay ka baqo oo joojiya dagaalkii colaadda hal la joojiyo waan leeyahay maxay hayday ilaahay ka cabsada ummad walaalaaba tiin wada dhalatay dhiigina waa kala xaaraan dad muslim oo sunniya waliba Soomaalidu tahay Soomaalidu waa dad sunniya walaal ah dhiigooduna kala xaaraan yahay ilaahay soo banaan dad islaam dhiigood waa kala xaaraan waxa ka iyaga isku dhamaaday habeen maalin yar iyo weyn xitaa dumarkii aan la dhaafay oo caruurihii la leenayo ilaahay ka baqo ilaahay ka cabsada aakhiradiina aakhiriya adduun boo seegteen aakhiriya adduun boo seegteen waa wax kala fahantaan wax kala gartaan dadku dad jahiliinaba maxaa dhacay dhiiga islaamku idin ka xaaraan dadka caruurihii iyo dumarkii wax walba la leenayo waa maxay meesha caynkaas gobolada kale waa idin dhaamaan idinka dagaal aan joogsi lahayn habeen maalin gaali islaam baa leedin wada degan gaali islaam wada degan baa leedin wada ilaahay ka cabsada muslimna baa tiino dhiignu kala xaaraan yahay kii colaad ku dhintaa ama dagaal ku dhintaa maxay hayday aakhirada waa garanaysa wax mudanayo hadii wax maqlaya qola duulaan hadii qola duulaan tahay qolada kale ku duulayso oo qolada gar daran tahay qolaas damiga horta iyada qaadaysa damiga ugu horeeya iyada qaadaysa damiga ugu weyn iyada qaadaysa qolada duulayso tagaysa meel aan deganaynin qolada duusha oo tagta meel aan deganayn tii kuwaas waxa weeye waa lagu shiidaya marka waxa leeyahay la joojiyo duulaanka la joojiyo dagaalka la joojiyo dilka dhalinyaradii waa dhamaysan habeenii maalin dil micna lahayn waxa ku dilaysaan dadkiina aan la garanayn oo ku dhameynaysan baa meesha ka socda waa aakhira seeg waa adduunyo seeg ilaahay ka cabsada baan leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa maxay ahayd Soomaalidu waa wiil yaabtigiis wiil yaabtigi waa dad isdhalay weeyaan wiil yaabtigi waa dad isdhalay weeyaan marka loo wiiliyo gabadhii walaashooda ciyaalkii aruurteedii waxa weeyaan isdilayaan arkaano arrinkaasna waa arrin ceeba waxay ahayd diinta islaamkuna waa idin ka xaaraantay dhiigga islaamka waa dhalashada ka soo kooba waxa weeyaan diinta ilaahay baa lagu xadgudbay dhiigii waa la banaystay waxa kasto ilaahay naga xaaraantay waa la banaystay waxa leeyahay ilaahay ka baqo dad kala dhexdhexaad iyo leeyahay ummada islaamiyad meesha joogta ama wadaadada culimada dood caalamka joogta maxay uga hadli weeyday dhiigga soo daadanaya waxa dhiig ka qaalisan ma jirto dhiigga meel cafiya dhiigga lama cafiyo maxay culimadu uga hadli weeyeen dhiigga daadanaya joogsanay iyo colaaddan foosha xun si badanayso si weynaanayso waana laga hortago dadkan la kala qaboojiyo dadkan la dhex galo la dhexdhexaadiyo xaaladdu meesha ku xad bay maraysaa waa ummad islaam oo dhalatay oo dhashay oo maxay ahayd islaama oo isku dhamaatay shaydaan baa ka dhex shaqaysanaya shaydaanka ka naar oo culimada dhex gala dadka kala qaboojiyo oo dhiigana la joojiyo saa daadanaya ilaahay laga boqo baan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.